marka qabiil aan u dagaal gelshay oo war iska dhiciya dadkina waa la baabaash waxay u sacbiyeen annagoo dagaalkii ku jirna indhood ku hayso iyo hamar gidir maxaa meeshaan maantay waa markii la cirib tiri lahaa indhood ku hayso maxaa loo jeedaa indhood ku hayso anaga inoo yaqaanay maantaas qabiil aan u dagaal geli jufan u dagaal geli qaarkoodna jaajuus isku bedeleen halkaan ay ku jiraan kuwa in soo miraa habeenkii waa hamar gidir iyo mursade iyagoo leh la arkay maxog iyo sawaxad cuni taqaan waa bamirihiisa makiinada cajiib baa shidin maalin iyo leyl muufada inta dubatida maraq ku daarta looguma tala gelin warkaan miidiye dagaalka baangelinaya waa 9 maalmood dagaalkii ugu cuslaa maanta dhacay oo dagaalkaas dhaxmara dagaalkaas Itoobiya wuxuu dhaxmaray iyo Soomaalidii meesha joogtay marka qabiil aan u dagaal gelshay oo war iska dhiciya dadkina waa la baabaash markaas dagaal ka socda muqdisho ka socda markaas anoo dhaliilaya mudullood abgal waliba anoo dhaliilaya aan anjalkaas taariikhu leeyahay baan hore u galay Khalid bin Walid kufayr muslamatul kadaab daarunadu markuu galay oo la jabiyay muslimkii waa kii qabiil halo dagaal gali maantaas qabiil aan u dagaal gali jufan u dagaal gali mudulloodsa waa ka reebay waxaan uga reebay looguma tala gelin warkaan miidiye halkaas waxa ka soo galay tireedisha anoo jooga waxa ka soo galay taangiyaashii Tigreega iyo Itoobiya iyo Abdullah Yusuf ciidamo ka keenay caro waxay u sacbiyeen annagoo dagaalkii ku jirna indhood ku hayso iyo hamar gidir maxaa meeshaan maantay waa markii la cirib tiri lahaa indhood ku hayso maxaa loo jeedaa indhood ku hayso anaga inoo yaqaanay dadka carradaan ka tagay oo reeqooyiga indhoodkooda u yaqaan reeqooyigaas anaga reeqooy noo yaqaan dadkan gobolada dhexe dadka degan marka waxay yiraahdeen maanta ugu dambeeyay waa u sacbiyeen in marka Shariif uu nin mas'uul yahay ragan ka soo reebtay ragna waa taabtay sax dagaalkiina qabiil jufan u dagaal gali muxuu ku maray hadda gabadh wuxuu imraayay inaad qabiil u dagaal galiday madulladna aad ka reebtay sababta qabiil aad ugu dagaal galiday madulladna uga reebtay madullad sababta madulladda dagaalkiina la gali diiday rag yar ma ahan waana noogu sacbiyeen qaarkoodna jaajuus isku bedeleen halkaan ay ku jiraan kuwa in soo miraa habeenkii waa hamar gidir iyo mursade iyagoo leh la arkay kuwana idaacadihii soo istaageen hal la qixiyo oo wadanka dhan laga raray yiraahdeen kuwana waa u sacbiyeen kuwina leeynay markaasaan ay barnaamijkaani u yimid waa garta marka mar haddaan mas'uul qaadi karin oo maamul garanayn Abdullah Yusuf aan xilligaas haysta mar haddaan mas'uul qaadi karin maamul garanayn haddii madax munaafiq la rabo lagana maarmaynin midkii hore maxaa lagu noqon Maxamed loo cayr marid kan sumaysan maarta leh mirku u fuulay malaawaha majnuunka manihin qoon maamulo madaxweyne ummadda ay rabto sharaf iyo maamuus leh mid kale oo maqruun kan ahayn madaxa loo doorto nuxumaata ila maagan baase meel fog ka arkaa miishaarta iyo midiyaha afka lahu nugula meeray murtadkii hawiye mar la yiri maanta noo yimid madarkicis intuu magac ka helo maarta waa soon maxamuud iyo martiilaan ahayn laba mataana mursado iyo xawaadlana way mitidayaan gugundhaba ismiidaamiyo miinadii xiray ayro mug weyn loo oo maahadaha madaxa ka goyn saleebaana wuu miri yaqaan gaalmaniiniya sacad wuu macaan yahay markii la ismutiyo maalin dirireed mudulloodsa meeshaan ka rabay maanta laga waa haddaad ii macaan tahay meel Allah kuga maageen maalinkii magalaga la isdaraad naga maqnaateen oon magaca raadinayo moolifluhu joogi macna male inaad muuqato oo milgal ahayn meeshaad ku nooleed adoo mudanaheedii muqdisho la maamulaya madal dharaareed ma jeerteen garowiye ka yimid midug iyo boosaaso inaad maqasho moogiye ma arag maanta ka horoobe milasiya munaafiqan ka haro mowqif ka istaaga hawiyo mug weyn laha mawla ka dhaliye oo qoon mahiigaan oo ka badan 10 malaayiin mansab iyo haddaad magac rabteen madax ma weyseen maangaabki cali maxamed baa meel xun in geey salaad cali ninku madaxu yahay muruga haysa
maxamed dheere uu maray yahay maxamed yahaagii waa layna ku maatiday markuu soo magaaq yiri waa munaafiq diintu ay manacdo mawlahay nacay haddaan laynu soo marin hawiye lama maqoonsheen meeshaad naga jirtaan hiraab kuma midoobaan nimankii magteennii qabay oo naf iyo maal leh mataanaha kuwa inagu dhuftaan midigta haysiin martigelinta gaalkan iyo dulood igu furmiiqayso hamar gidir intaad leedahay mursada saana yuusan magacu kaaloomin hawiye meeshaad uga taalo malaaq iyo waxaad leedahay niman mashaa'iiqa mas-uul sare shariif oo ka maqanay macawis qaateen in abuukar uu magan yahana ciidamo moogeen magaciina waa baay haddaad midigta laabteen haddaad midigta laabateen magaciinii waa baay haddaad midigta laabteen maxog yasa waxaad cuni taqaan waaba mirihiisa makiinada cajiib baa shidin maalin iyo leyl muufada intaad dubatida maraq ku daartaa mooska iyo maqaasiimadaasad gadi taqaaniine waana kaa madoodahay martabo iyo maanrag leeyahay meesha la iska qonfaayaba lama socotiine ama dagaalka galaan ama naga leexda gabaygaas madulood iyo hawiyoo dhan oo uu taabanayo buu ahaa xilligeediina waa la soo maray ma ka falceliyaan laba qodob uga falcelsheen qaar colaada ii qaadeen waxa la yidhi munaafiqaas meesha lagu arko hala dilo waa dilta washaag waa hala soo qabto alla dagaal gelina ka rabi qaarna waxa la run sheegay dagaalka aan galan labadaas u kala jabeen waa kaas